iiraan marka aan ka hadlayno dalkan dhaca qaaradda eeshiya waxaa hubaal ah in maankaaga ay ku soo maaxanayso hal sumad oo keliya taasoo ah inay tahay dal shiico ah dad caqiido ka dhigtay aflagaadaynta saxaabadii subaneed ee nebigeenna naxariisii nabadgelya korkiisa ha ahaatee aynu nahay isku diin laakiin ku kala duwannahay aadaanka iyo caqiidada ayay ku suman tahay iiraan laakiin ma og tahay daawade in ka badan 800 sano ay ahayd iiraan dal sunni ah oo u soo saaray caalamka islaamka culimo sida al-Bukhari, ibn Sina, Abu Hanifa al-Nu'man iyo al-Razi ku leh maamuus iyo saamayn kana tegay dhaxal diimeed oo ay ilaa maanta jiilal badan oo islaam ah ku caanamaaleen. Haddaba goormay noqotay iiraan dal shiici ah oo cadaawad u qaba qayb ka mid ah asxaabtii subaneed ee nebigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee? Si muxuu yahay madhabka shiicigu? goormuu bilaabmay? intee u kala qaybsamaa? si maxay aaminsan yihiin shiicadu? muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaan ku eegaynaa madhabka loo yaqaano aalulbeytka innagoo ogaan doona xaqiiqda daahsoon ee ay leedahay iiraan. magacaygu waa cabdiraxmaan cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. ugu horeyn inteenan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin daawade haddii aadan weli ka mid noqon bahweynta nagu taxan inaad subscribe dhahdid channelkan, sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan ha ilaawin inaad like saartid. mahadsanid. aan u galno muuqaalkeenna maanta. marka dib loogu noqdo safxadaha taariikhda waxaad arkaysaa in dhulka maanta loo yaqaano iiraan saldhigana u ah shiicada inuu ahaan jiray isaga iyo dalalka ku hareeraysan hoggaanka boqortooyadii la oran jiray Faris oo ahayd xilligeedii mid ka mid ah labada boqortooyo ee ugu awoodda badnayd adduunka, boqortooyadii Rum iyo Faris. kadib markii uu soo baxay islaamku waxay boqortooyadii Faris ka mid noqotay dhulalkii uu gaaray islaamku, waxaana ka soo jeeda saxaabo lagu tirin jiray saxaabadii ugu muhiimsaneed islaamka sida Salmaan al-Farisi oo aynu ka wada dharagsannahay doorkii muhiimka ahaa ee uu ku lahaa dagaalkii qaswatul khandaq. laakiin wuxuu noqday dhulkii Faris kadib 800 sano oo uu ahaa dhul islaam ah haystana madhabka sunniga ah mid isku bedela madal gaashaan u noqota shiicada. haddaba maxay yihiin shiicadu? se maxay ku kala duwan yihiin sunniyiinta iyo shiicadu? shiicadu waa madhabka labaad ee ugu dadka badan madaahibta islaamka marka laga yimaado madhabka sunniga ah, waxaana lagu qiyaasaa dadka haysta madhabkan 320 milyan oo qof. dabcan tiradan ma ahan tiro rasmi ah, waxayna ka yihiin tirada guud ee muslimiinta adduunka 20%. sida ka muuqata khariidadan, shiicada ayaa kaga nool adduunka dalalka xambaarsan midabka cagaarka tikhda ah. sidaynu wada ogsoonnahay nebiyada iyo rususha ayuu ilaahay u soo diri jiray si ay ugu yeeraan dadka inay alle u gaar yeelaan cibaadada, waxaana xilli walba soo bixi jiray nebi ama rasuul xambaarsan dhambaalka alle. waxaa xitaa marmarka qaar dhici jirtay in hal xilli ay wada jiri jireen laba nebi sida nebi Yacquub iyo nebi Yuusuf ama Daawud iyo Suleymaan. waxaa sidoo kale dhici jirtay in nebiyada hal xilli wada nool ay gaari jireen marmarka qaar 3 nebi oo uu midba joogo dhul gaar ah sida nebi Zakariya, nebi Yaxye iyo nebi Ciise. laakiin nebi Maxamed soo bixidiisu waxay soo afjartay nebiyadii iyo rusushii, maxaa yeelay nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaa nebigii ugu dambeeyey ee uu alla soo diro. dabcan oo markaan ka hadlayno madhabka sunniga ah, laakiin shiicadu waxay aaminsan tahay si ka duwan sidan, maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin inay khasab tahay jiritaanka qof mar walba xasuusiya dadka ilaahay, sidoo kalena uga jawaaba dhammaan su'aalaha ka guuxaya maankooda. waa hubaal inay qirsan yihiin in nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu yahay nebigii ugu dambeeyey, laakiin waxay aaminsan yihiin in nebi Maxamed gadaashii dadka yimid ee xasuusinayay dadka alle inay yihiin imaamiyo. waana halkan meesha aan ku kala duwannahay shiicada. haddii aan sii faahfaahinno, mabda'a ama caqiidada shiicadu ku dhisan tahay ayaa ah caqiido ku taagan imaamnimo. imaamkuna waa qof si joogto ah uga soo baxa ummadda si uu u xusuusiyo caabudidda ilaahay nebi Maxamed gadaashii. imaamkuna ma ahan nebi ama rasuul, waxaana jira sifooyin dhowr ah oo ay khasab tahay inuu imaamku ku suman yahay, sida inuu yahay qof ka soo jeeda qoyskii nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee,
sidaynu wada ogsoonnahay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu dhalay 7 carruur ah, 3 wiilal ah iyo 4 gabdhood. kulligood waxay dhinteen iyagoon waxba dhalin marka laga reebo Faaduma oo iyadana uu guursaday Cali bin Abi Taalib. waana halkan meesha ay shiicadu ka soo galaan qoyskii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waan u soo noqonaynaa qodobkan aynu u sii gudubno qodobka labaad ee ay shiicadu ku suntaan imaamkooda, taasoo ah inuu yahay qof dhowrsoon oo aan khalad ku dhicin. waxayna aaminsan yihiin in imaamyadu sida nebiyaasha oo kale aysan khaldamin oo ay yihiin kuwo alle uu ka nasahay khaladaadka. qodobka saddexaad ayaa isaguna ah in imaamyada loo waxyoodo sida rususha iyo ambiyada oo kale, waana sababta ay u joogaan si ay dadka uga jawaabaan su'aalaha ka guuxaya markaas imaankooda. kumana koobna axaadiista ay shiicadu adeegsadaan xadiisyadii nebiga oo keliya, balse xitaa hadallada imaamyadoodu waxay u yihiin xadiis ay waajib tahay in la raaco. shiicada ayaa u qaybsan sida ay madaahibta kale ee islaamku ugu qaybsan yihiin kooxo waxyaabaha qaar isku khilaafsan. shiicaduna waxay leeyihiin kooxo sida aynu arki doonno. waxa ugu muhiimsan ee ay isku haystaan ayaa ah imaamyada ay aaminsan yihiin in nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee gadaashii ay soo baxeen. dhammaan qaybaha shiicadu waxay ka midaysan yihiin in Cali bin Abi Taalib uu ahaa imaamkii ugu horeeyey ee uu alle soo diro. kadibna waxaa ku xigay wiilkii uu dhalay ee la oran jiray Xasan bin Cali, isagana waxaa ku xigay inankiisii labaad ee Xusein ibnu Cali. kadibna waxaa ku xigay oo ay imaamkii afraad ka dhigteen wiil uu dhalay Xusein oo la oran jiray Cali, loona yaqaanay Zaynul Caabidiin. kadibna waxaa ku xigay inankiisii Maxamed al-Baaqir, halka martabada lixaadna uu ku jiro inanka uu dhalay Maxamed al-Baaqir ee Jacfar al-Saadiq. ilaa iyo inta laga soo gaaraya halkan way ka midaysan yihiin shiicadu, waxayna dhammaantood haystaan caqiido ka dhigaysa 60 inay yihiin imaamyo uu alle soo diray si ay dadka u xasuusiyaan alle kacabsiga, loona waxyoon jiray. laakiin marka ay marayaan imaamka lixaad ayay isku khilaafeen imaamnimada, maxaa yeelay sida caadiga ah imaam waxaa noqon jiray ilmaha ugu weyn ee uu dhalay imaamkii ugu dambeeyey. Jacfar al-Saadiqna inankiisii ugu weynaa wuxuu dhintay isagoo weli nool. arrintani oo keentay in shiicadu isku khilaafaan qofka imaam noqonaya, ma inanka yar ee uu dhalay Jacfar al-Saadiq ba mise inankii ugu weynaa ee uu dhalay inankii dhintay ee la oran jiray Ismaaciil. waana halkan khilaafkii ugu horeeyey ee soo kala dhexgalay shiicada. haddii aan sii wadno, kooxda tiri imaamku wuxuu noqonayaa inanka yar ee uu dhalay Jacfar. imaamkooda 7aad waa Muuse al-Kaadim, waxayna sidaa isku daba joogayaan imaamyadu ilaa laga soo gaarayo imaamka 12aad oo ah Maxamed al-Mahdi. imaamkan waxay aaminsan yihiin in duruufo u gaar ah awgeed in uu meel ku dhuumanayo hadda oo uu nool yahay, soona bixi doono marka qiyaamuhu dhow yahay. soo bixitaankiisuna uu yahay calaamad ka mid ah calaamadaha qiyaamaha. kooxdan ayaa loo yaqaanaa Isnay Cashariya, waana kooxda ugu weyn kooxaha shiicadu u qaybsanto, waana shiicada degta Iiraan, Baxrayn, Ciraaq iyo Lubnaan. kadib dhimashadii suldaankii Cismaaniyiinta Maxamed al-Faatix ee furtay magaalada Istaanbul, awoodna u yeeshay inuu fidiyo dalalkii ay ka talin jirtay khilaafadii Cismaaniyiintu, ayaa waxaa bedelay inankiisii la oran jiray Bayezid. Bayezid ayaa ku suntanaa hogaamiye cibaado badan oo aan u janjeerin dhanka dagaalada, waxaana xilligiisii aasaasantay dowlad la oran jiray Safawiyiin, taasoo ka aasaasantay dalka Iiraan. xilligaasi Iiraan madhabka ugu badan ee ka jiray wuxuu ahaa madhabka sunniga ah, gaar ahaan madhabka shaaficiga loo yaqaano, waxayna ku koobnayd shiicadu keliya 4 magaalo oo ay ugu muhiimsanaayeen Khuraasaan iyo Qum. sanadkii 1501 ayuu ku guulaystay Ismaaciil al-Safawi inuu dhidibada u taago dowladdii Safawiyiinta, wuxuuna sanadkii 1508 la wareegay magaalada Baghdad. arrintani oo ka dhigtay mid garoosada in xilli aan fogeyn ay isku dhici doonaan khilaafadii Cismaaniyiinta oo xilligaasi maamuli jirtay dalalkii Islaamka. arrintani oo ka dhigtay Ismaaciil al-Safawi mid ka fakara sidii uu ugu beeri lahaa dadkii Iiraaniyiinta arrin dareensiin karta in Iiraaniyiintu ka sareeyaan Carabta, aysanna dhici karin inay hoos tagaan. wuxuuna ka fakeray samaynta madhab diineed ka soocan madhab diimeedkii ka jiray dalalkii Islaamka xilligaasi, gaar ahaan madhabkii dowladda Cismaaniyiinta, si Safawiyiinta iyo Cismaaniyiintu ay u kala noqdaan dad haysta 2 madhab oo aan shaqo isku lahayn. waxaana dhacday in habeen ka mid ah habeenada uu isugu yeeray dhammaan mas-uuliyiintii dowladdiisa, una sheegay inuu shaacin doono in dhulalka Faris maanta laga bilaabo madhabka shiiciga ah, gaar ahaan madhabka Isnay Cashariya ee aan kor ku soo sheegnay, uu noqon doono kan laga aaminsan yahay dhulkaasi. wuxuuna maalintii xigtay oo ahaa maalin Jimco ah uu aaday masaajidkii magaalada Tabriz
isaga oo ay weheliyaan boqolaal ciidamo ah wuxuuna ka shaaciyey masaajidkaas in laga bilaabo maanta madhabka dhulka uu ka taliyo oo dhan uu u beddelay madhabka shiiciga ah. dabcan dadkii ku sugnaa masaajidka ee ka soo horjeestay oo dhan wuu dilay, wuxuuna sidaasi si rasmi ah ugu beddelay dalka Iiraan mid shiici ah. waxay fureen iskoollo, sidoo kalena madaariis lagu horumarinayo madhabkan, waxaana xilligaasi lagu daray aadaanka masaajidada oraahda ah caliyun waliyullah oo maanta aad ka dheehan kartid aadaanka shiicada. waxayna wax caadi ah ka dhigteen caayadda iyo ugafidda saxaabadii suubanayd ee nebigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. أشهد أن عليا ولي الله